وانا يجي ده صعده مرحبا وانا يجي ده صعده ururka afraad guutada 16aad ee kumaandooska darab iyo ciidamada dib u xoreynta deegaanka ayaa maanta howlgallo lagu baacsanaya haraadiga kooxaha maleeshiyaadka al-shabaab waxa ay ka sameeyeen tuulooyin hoos yimaada deegaanka budbud ee gobolka galgaduud goobaha laga sameeyay maanta howlgalkan ayaa waxaa ka mid ah tuulada xintumaali soo kala ceele laga cabo biyaha kuwaas oo ku yaala dhulka hawdka ah waxaana gabi ahaanba iskaga cararay maleeshiyaadka al-shabaab halka ay haatan ku sugan yihiin ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya dadka deegaanka ee maanta gaaray tuulooyinkaasi taliyaha ururka afraad ee kumaandooska danab laba xidigle Cabdullaahi Mustafa Cali Madaale qaran oo hogaaminaya howlgalkan ayaa sheegay inay ku raad joogaan firxadka horjoogayaal isoo kale maleeshiyaad ka tirsan argagixisada al-shabaab kuwaas oo ku dhuumaalaysanaya deegaano u dhow degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud oo ay haatan kaabay ku hayaan boqolaal ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed cabsida ugu xoogganeed ayaana soo wajahday horjoogayaal isoo kale maleeshiyaad ka tirsan kooxaha argagixisada al-shabaab kuwaas oo la sheegay inay ku sugan yihiin degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud